أولا إلهي بقى مهاد إسكالي isku keena kulmiye meeshaan nabadda wanaagga ay sharaftaan dhamaantiin waxaan isugu yeernay galabtay oo shirkan saxaafadeedkan ku qabanaynaa nimankan dhalinyarada ah oo soo dhibayaasha khawaarijta ka tirsanaa ururka khawaarijta qaybaha naga soo horjooda xiriir naga dhaxmaray madaxda iga sarreysay anaga ku yimaadeen waxaan u cadaynaynaa waalidiintii dhashay iyo dhamaanba iyo degmada waxaan ku talagalnay inaan ogaadaan inay caafimaad qabaan nabad ku yimaadeen ciidankii meesha ugu tagay waxay ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qaybta 12aad ciidanka daraawiishta galmudug ciidanka deegaanka dhammaan si wada jira booliiska hay'adaha amniga oo waxa ka maqnayn waxaan ugu talagalnay in sidaas loo ogaado riboorkooda halka yaalo aan wax dhibaato ah ka jirin ayagana dib loo wareysanayo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka barnaamijkaas aan rabnay ku soo dhawaano insha Allah kariim madaxweynaha Soomaaliya ilaa ka galmudug ilaa dhammaan hay'adaha amniga waa la cilaamiyay in qofku hadduu qalad inta galay inuu ka soo noqdo go'aansado in lagu dhaqmo si wanaagsan oo soo dhaweyn leh qof alla qofkii Soomaaliya arkaaba oo gacanta ku soo qabto ee uu san fiirin wixii hore u geystay iyo system buu ahaa hadda nimankan dhalinyaraha ninna uu 19 jir iyo 23 jir iyo la qaldo adinku baad arki doontaan wariyaashiinu waxa waraysataan waxay ku jireen iska wada farkood marka kuwa ku jiraan waxaan leenahay dib inta kama horeeyo waxa idin sheegayaan nimanka idin khaldaya oo idin kii hore tagana waa la dilay kii horena waa la gubay hal xabba kama jirto waalidka Soomaaliyeed meel walba joogan ha ku dhiiradaan dadkooda dadka uga jira inay yiraahdaan si degdeg ah hay'adaha amniga ka horeeyay isugu dhiib ha ku dhiiradaan waxa ay ka wareegin insha Allah kariim baaqaan u direynaa intaas insha Allah waran Ilaahay baa maad iska leh oo suurta galiyay inaan guushan aadka qiimaha badan leh gaarno marka kale waxaan rabaa inaan mahad celiyo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan hadii ay yihiin hay'adaha amniga iyo hadii ay yihiin ba kuwa deegaanka dhamaan xalay aad iyo aad ba u maasantiin waxa gudateen waajibaadkiina awal ah hore u gudan kartiin ayaa haddana gudanaysaan aad iyo aad ba u maasantiin waxaan rabaa inaan sidoo kale iraado nimankan leertaa soo dhawaada waa ka warqabtaan hadda cid kaga sheekeynaysa noloshii aad daraad ku jirteen iyo noloshii aad soo gasheen habeen hore iyo hadda oo galabtay ah farqiga u dhaxeeya waa dareemi kartaan waxa ka soo baxdeen riski aad ku jirteen oo idinku aad marqaati ka tihiin wajigiina sidoo u ekaa shala subax iyo galabtay waxa ka muuqda iyo waxa aad dareemaysaan intaba waxaan rabaa sidoo kale inaan iraado dhalinyarta nimankan la midka ah ee ku jirta falalka argagax xale ama aadka u xun ka soo baxa filinkaas atoorihiisi hore ayuu u dhintay waxa ku jirtaan meel xun baa ku jirtaan ka soo baxa wali waxaad haysataan waqti aad ugu imaan kartaan dadkiini annagana waxa idin ballan qaadayna sida awal hore ay kugu ballan qaadeen madaxda u sareysa ee dalka iyo kuwa ugu hooseeya ee annaka aan nahay inaan meesha aad ka soo gashaan ciidamada xoogga iyo ciidamada dib u xoreynta intaba inaan ku soo dhaweyno gacmo furan waxaan rabaa inaan iraado dhalinyarada sidii noo kala inaa idinkuna aad ugu baaqdaan oo aad u cadeysaan wixii aad ku jirteen iyo waxa maanta aad ku jirtaan sidoo kale waxaan rabaa inaan ugu bishaareyno waalidiintii aad ka dhasheen nimankan oo intaasoo sano ay noloshoodii iyo geeridoodii aysan ka warqabin inaan idhaano maanta waa kuwaana wiilashiini inaad ka daawataan sida ay yihiin galabtay ayagoo nabad qaba ayagoo caafimaad qaba ayagoo nolol cusub ay u bilaabatay waxaan rabaa inaan iraado waa maasantiin dhammaan